shiine waxaan ku leeyahay ilintaadan micna dar ayay kaaga qubatay oo hintaadana si baatil ayaad ku oyday oo aan xaq ahayn waa hal bacad lagu lisay wax micnaa kuma fadhiida sumcadaas walaal shiine midaas ogow xisaabtana ku darso tii alla u timi boqorada ingiriiska kuwiina Elizabeth aniga ka Umar ahaan waxaan in badan arkaa bal amaalin waliba arkaa waxaan arkay in badan oo YouTuber ah ama dadyo oo YouTube-ka wax soo geliya oo geeri ku tilmaamay waxa uu rukuucay dhammaan ciidankii Ingiriiska ahaa ee iyada soo kaxaysatay waxa kale uu rukuucay dhammaan madaxdii Carabta kuwa Hinduuga kuwa Furusta dhammaantood waxay u rukuuceen Elizabeth boqoradan baqtiday ilaa laba suldaan oo Soomaali ah Suldaan Cabdiraxmaan Diiriye iyo Suldaan Maxmuud Shire shakhsi Soomaali ah oo baraha bulshada caan ku ah oo ah YouTuber ay ku xiran yihiin kumanaan qof oo u ooyay kana ilmeeyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد شوقي إساقو أمد سفينايو أما أمد قيحايو أياو حكو قبيي أو أمد كو قيحاي قبيقان هديرتان هرتنا ذكا مغضى بحيري إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا بحيري مركا لقوليه أمد وإنت أمد داسي أخلاق دا أي باقي كتهاي أو أي أخلاق ليهين فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا هدي أمد داسي أي أخلاق دا تكتو oo ay akhlaaqda ka tagaan dhahabu iyaguna way bixeen oo way tageen wayna hoydeen ilaahay ha arooriyo inaga waxaana qusay ummadan aan ka soo jeedno Soomaaliya sanadahan dambe waxaan arkaynaa in Soomaalida ay ka dhex baxayso akhlaaqda oo ay ka siibanayso oo waliba ay ka insilaaqayso akhlaaqda sida eriga marka la qowraco maqaarka looga siibo ama maqaarka looga dhigo Soomaaliduna sidaas ay akhlaaqda isaga siibaysaa iskagana dhigaysaa mudane iyo marbu bariyahan dambe waxa dameeriyo dhagihiis noqday ama lug iyo kabteeda noqday Soomaalidu ku sugan gudaha dalka iyo kuwa ku sugan dibadda dalkaba iyadoo ayna meesha ka marnayn dad fiican oo wanaagsan oo Ilaahay hagaajiyay laakiin xaalka Soomaali maanta wuxuu marayaa dameer iyo dhagihiis ama lug iyo kabteeda aniga ka Umar ahaan waxaan in badan arkaa bal amaalin waliba arkaa wax igu beera dareenka ah inaan ummadeena ka quusto oo yacni rajab ka yeelan waayo iyo dareen ah inay ummadeena hoos u sii socoto oo ay hoos u leecayso dareenkaas wax igu abuuraya maalin waliba arkaa fiiro gaar ah muuqaalkan ma ahan mid aan ku weeraray shakhsi Soomaali ah ma ahan mid aan ku weeraray shakhsi gaar ah waxaan rajaynayaa inaad fahmi doontaan oo aad fahmi doontaan in aanan weerar wadin laakiin aan istusayno duleeladeena meesha aan ka daloolanahay inaan istusayno halka ay sumcad xumada inooga imaan karto waxaan istusaynaa inay ummadeenu sii jeedo hoosna u sii socoto haddii aan qof un soo qaadanan ama shakhsi aan soo qaadanan waxaan cadeynaynaa in qofkaas yacni waxyaabaha uu sameeyay ay sumcadeena iyo dadnimadeena hoos u dhigayso haddii lacala aan qof soo qaadana muuqaalka inta ku guda jirno waxaan cadeynaynaa in qofkaas wax uu ku dhaqaaqay ay sumcadeena ka Soomaali ahaan ka ummad ahaan ay hoos u sii dhigayso iyadoo waliba cadeemaheeda aan sidno sidoo kale waxaan muuqaalkan ka marneen oo aan soo qaadanaynaa laba suldaan laba boqor Soomaali ah oo tusay naagtan baqtiday in Soomaalidu ay yihiin dad qiyan iyo mabaadi leh daabade kadib markii ay boqoradan baqtiday dhimatay ma dhihi karno waa kaafirad billahi al-azim waa qof Ilaahay ku gaalooday rumeyn weedi dhimatay ma dhihi karno qofka gaalka ama dhintay abuu baqtiya kadib markii ay baqtiday waxa ay gula argagaxa badna oo aan arkay waxa kamid ah shakhsi Soomaali ah oo baraha bulshada caan ku ah oo ah YouTuber ay ku xiran yihiin kumanaan qof oo u ooyay kana ilmeeyay geerida boqoradan may aan iraade oo u ooyay kana ilmeeyay baqtinta boqoradan geeri ma dhihi karnaa wax yar muuqaalkan ila daabo waan isu soo laabaneynaa maanta adduunyada oo dhan waxay u tahay maalin murugo waxa tii alla u timi boqorada ingiriiska kuwiina Elizabeth marka waxa la inta ka badan kuma socon karo ummadda Soomaaliyeed anigu dareenkayga maanta ma qiyaasi karo waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa jirta oraah carbeed oo tiraada laysa man ra'a kaman sami'a qofka arkay ma ahan sida qofka maqlay waad fahmi kartaa farqiga u dhaxeeyo inaad wax maqasho iyo inaad wax aragto oo aad bi ummixiinka ku aragto farqi weyn ayaa u dhaxeeyo waadna fahmi kartaa walaalkeen wuxuu yiri adduunyada oo dhan ay murug u tahay geerideeda subhanallah qaladka koobaad geeri inuu ku tilmaamo ma ahan sidoo kale dad waliba ama qof waliba oo geeri ku tilmaamay inuu geeri ku tilmaamo ma ahan waxaan arkay in badan oo YouTuber ah ama dadyo oo YouTube-ka wax soo geliya oo geeri ku tilmaamay waa inuu baqtin ku tilmaamaa mid labaad wuxuu yiri adduunyada oo dhan ay murug u tahay cajiib thumma cajiib walaal
waxaan ku weydiinayaa marka aad leedahay adduunka oo dhan ay murug u tahay ma waxaa geeriyooday qof muslim ah waxaan ku weydiinayaa imise culimo imise sheekh ayaa geeriyootay ma aragtay qof gaal ah inta dadka soo hor fariistay kadibna ooyay dhahayna waan ka murugooday waan ka naxay ma aragtay qof gaal ah oo muslim geeridiisa ka murugooday maya anika cumar ahaan weligay ma arag mana maqal hana sugina inaad aragtaan gaal u murugoonayo muslim gaaladu muslim uma naxariistaan uma calool jilcaan gaalku waa cadowga koowaad oo uu leeyahay qofka muslimka ah waana aragna xaaladooda waa kuwa walaalaheena Falastiin oo aan waxba galabsan dhibaatadaas iyo baabas dhulkooda ugu wada oo dhulkoodan ugu tagay gaalada xaalkooda waan ka dharigsannahay ma sugayno mana rajaynayna mana rabnaba qof gaal ah inuu u murugoodo muslim cadaabada naga dhaxaysa gaalada inaga walaalkeen hadaladiisa waxa kamid ahaa boqoradan inay tahay qof shacbiyad leh inay tahay qof bulsho weyn leh boqoradu waxay kamid ahayd waxay ahayd qof adduunka oo dhan laga yaqaano waxay ahayd muddada dheer qof shacbiyad badan adduunyada ka kasbatay runtiina aad loo jecel yahay oo loo tixgeliyo نقطتان هدي أن وحكده ولال قفك بني آدم سمعة ولي بقوليه هاي مجع يماموس ولي بقول كسبده شعبيد ولي بقول يشو بولش ولي بنجعلاته هدي أون الإيمان لهن أو أون جرينين معناها أدون كله كني أو إنه إلهي عابده هدي أنت سبجرينين كنا قد جرشة هذا وهل بعد لقولسي وحمي عناكم مفرد سمعة داس ولا الشيء مدرس أجو حسابتنا كدرسه شيء وحنقوليه هاي اللي أنت هذا معنى درء كعقوبتي وهنت هذا السباطل يتكو أيدي وأنا حق أهين قدب كان أنميش أقبحه في رجارة دابدي أنيجا كعمرهان وحن ليه فكرة ديو أركتي أذيقون وحد ليه فكرة ديو أركتي كان جرواقس وحن أسميه إنا نكون نفسه أو نقدم ميل أن وحولي بقى فكر كيجا سوقليو مركب وحي فكر كيجا كاقنعيو كقابو وحي كاقنعيو ويانا إسكاقتك وايوا فكرة شخصية دون ما أهن قرآن سودكتي فكرة أنت بددتك بني آدم كو إسكو خلافا إلا وحير أو إلهي سوافجي هذه فكرة دي إيو تادي إسوافقدو قادو هديسان إسوافقين تادي كو دقنو أنا تيدي إيدا وفكرة دون ما أهن وحدين سودكتي ما أهن وفكرة دون فكرة هذا هيسو تيديني إيدا أن أقودبو قدبك كو آدن وتعسيين دبقردان بقتدي halka waxaan uga tacsiyeenayaa waxaan leeyahay ilaahay qalbiga ha idin qaboojiyo samir iyo iimaan buuxdana ha idinka siiyo waxaa nas qur'aan ah ama aayad qur'aan ku soo arooray in aynan banaanin in dadka muslimiinta ah ay u duceeyaan oo ay dambi dhaaf u weydiiyaan qof gaal ah oo gaalnimada ku indhalaabtay ama gaalnimada ku indha dabooshay in dambi dhaaf u weydiiyaan inaynan banaanin aayad qur'aan ayaa cadeysay marka aan nuqdadan joogo waxaan si gaar ah u la hadlayaa walaalahan ku sugan waqooyiga dhulka Soomaalida walaalayaal waxaan idinkaga digayaa in ay caatifad iyo xamaasad idin qaado kadibna aad ku fududaataan inaad dambi dhaaf u weydiisaan qof baqtiday aan u sii gudbo labadii suldaan ee Soomaaliga ahaa oo naagtan baqtida tusay inay Soomaalidu yihiin dad qiyam iyo mabaadi leh sanadkii 1954 markii boqortooyada Ingiriiska ay gumeysanaysay gobolada waqooyiga Soomaalida naagtan baqtiday waxay booqasho ku timaaday magaalada Cadan oo markaas lagu magacaabi jiray Maxmiyatu Cadan waxa lagu soo dhabeeyay xalfadaas dadka loogu yeeray waxa kamid ahaa salaatiin ka socday jasiirada ee ka Soomaaliya عادة دبلوماسيات كأدت كسلها وحكمتها إليزابيث وحيسدين جرت أول مركلة سلامة وحواجبها إلا ركوع مركة حلفة سوغارتي وحاول ركوع ضمان عيدا كإنجليز كها إذا سوك حيستي يدك حلفة سوقتي وأركض وأركيان إما شهد إنه يجوا يهماموس يشرف وحكلوا الركوعي ضمان مدحري عربت كوبا هندوغا كوبا فرستا ضمان تدوح الركوعين إليزابيث بقردان بقتدي إلا لبا سلطان أو صومالي سلطان عبد الرحمن ديريه iyo سلطان محمود شيره kadib iyada ayaa si ixtiraam iyo xushmad leh u salaantay una xirtay bilad sharafeedka Ingiriiska taariikhdan waa mid farxad leh oo nagu abuuraysa hami iyo rajo ah inaan nahay ummad taariikh leh oo macquul ah in ay maalin u soo cishtaan sharafka iyo maamuuska ay lahaayeen waana mid aan in badan ku taamo in maalin aan soo celino maamuuska iyo sharafkii ka ummad ahaan ka Soomaali aan lahayn insha Allah waana soo celin doonaa waa Umar Maxamed oo muuqaalkan ku soo
siiyey kanaalka garwaaqsi haddii aad isleedahay kanaalkan garwaaqsi wax u bad ka faa'iidi xitaa hal kelmad bad ka faa'iidi ku soo biir kanaalka subscribe saar siina faafi kanaalka ugu yaraan hal qof xitaa gaarsii muuqaalkana like saar si uu dad badan u gaaro una ogaada macluumaadkan mar kale waa walaalkiina Cumar Maxamed والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.